madaxweynaha Somaliland Musa Biixi Cabdi ayaa furay shirka bangiga dhexe iyo bangiyada gaarka loo leeyahay sida uu warkaasi inoogu soo diray wariyaheena Faysal Yuusuf Kacaan oo laba nooga soo warama magaalada Hargeysa. Musa Biixi Cabdi madaxweynaha Somaliland ayaa maanta ka qayb galay shirka horumarinta baananka oo si rasmi looga furay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. Madaxweynaha Somaliland wuxuu sidoo kale halkaasi ka jeediyay khudbad aad u dheer oo dhinacyo badan taabanaysa isagoo uu horeyntii u mahadnaqay ka soo qayb galayaasha shirka hay'adaha maaliyadda iyo waliba baananka iyo sidoo kale wadamada ka soo qayb galay shirkan ee Turkiga, Ethiopia iyo Djibouti iyo ganacsatada Soomaaliyeed oo ka kala yimid goobo kala duwan. madaxweynaha Somaliland waxa uu yiri waxaan aad iyo aad soo dhaweynayaa dhammaan martida ka soo qayb gashay halkan martida madaxda qaranka oo noocyo badan ganacsi leh xukuumad leh dhaqan leh iyo dad kale oo aqoonyahanaba aad iyo aad baan ugu soo dhaweynayaa waan ku faraxsanahay ka soo qayb galka shirkan waxa kale oo aad soo dhaweynayaa wakiilada dawladaha Turkiga, Ethiopia iyo Djibouti oo aad uga mahadnaqaynaa inay ka soo qayb galaan shirkan lagaga doodayo isku xirka baananka iyo dadka iyo hay'adaha maaliyadda ee dalka aad iyo aad bay u mahadsanyihiin. waxay farxad maanta in shirkan si rasmi ah u furo oo aan filayo rajaynayo inuu noqonayo wada cusub oo inuu u baahnayn oo ku dardargelinayno kobcinta wada shaqaynta isfahamka iyo hanaanka ay dhaqaalaheena isku xiriirna hay'adaha ka shaqeeya oo moodo in marka hore kala daadsan yihiin dalkooda nahay hay'adaheena midba mar bay abuurantay qaar baa sharciga ka horeeyay marka waa de qof koraya iyo caadadii maanta meel baynu maraynaa ilaahay mahadiya ay wasaaradii maaliyadda iyo banki gaareen heer ay kulmiyaan dhammaan hay'adihii baadii maaliyadda deetana ay ka wada tashadaan si ay dalka u horumarin lahaayeen iyagoo iska afshanaya isla qeexaya dhibaatooyinka jira isla fahmaya sida dhibaatooyinka lagu gudbiyo si wada jira intii ay soo jeediyeen dadkii aqoonta u lahaa shaqadan maaliyadda hadday yihiin hay'adaha gaarka ah iyo hadday yihiin banka dhexe iyo wasaaradda maaliyaddu fikradaha kooban ay noo soo jeediyeen oo wax cilmi ah oo aan malaawaal ahayn oo laga doodin ayaan ku raacsanahay waxaan ilaahay ka rajeynayaa in ay inoo hirgeliyaan intaas waa shirka maanta qodobka muhiimka waxa weeye xukuumad ahaan maxaanu ka qabnaa wada shaqaynta bahda maaliyadda boqolkiiba boqol sidaa ay nagu hogaaminayaan wasaaradda maaliyadda iyo banku waxaanu aaminsanaanu raacaynaa inuu dalku hore u marayo keliya marka ay hirgalaan hay-ado maaliyadeed oo madax bannaan oo xooggan iyo wasaaraddii iyo bankii dhexe oo shuruucdii iyo kormeerkii oo keliya leh ee aan dhex gelin suuqa xorta ah oo aan gacanta gelin waxaanu aad iyo aad u xiisaynaynaa anu jecelahay inaanu isfaham buuxa iyo wada shaqayn dhow yeelino hay-adaha maaliyadda ee madaxa bannaan sida shirkadaha rugta ganacsiga kuwa caymiska kuwa sariflayaasha ah oo kuwa ugu muhiimsan ah tiro ahaan iyo adeeg ahaanba iyo dhammaanba ciddii hal abuur leh xukuumad ahaan waxaanu codsanaynaa baananka madaxa bannaan oo ka xoog badanba ama ka hor dhasho ka hor qaadin baananka ka baanka dhexe oo kale waxaa saaran xil weyn oo ka duwan ka ganacsiga oo abuuran yihiin oo waxaa saaran xil qaran markaynu doonayno dalku inuu horumaro mas-uuliyadda koowaad ay fulaysaa waa iyaga dhaqaalihii xooganaya. Faysal Yuusuf Kacaan wararka telefishinka caalamiga Royal Hargeysa.